halkani waa Kashmir, gobolka ugu halista iyo khatarta badan adduunka. Waxa ku duloolamaya oo isku haysta saddex quwadood oo uu mid walba leeyahay hubka sida ba'an wax u gumaada ee nuclearka. The voice of Kashmiris who are caught in a vicious cycle of violence. In ka badan nus qarni ayuu ahaa gobolkani mid lagu tilmaamo inuu yahay gobolka ugu badan ee ay ciidamo ku sugan yihiin adduunka oo dhan. They would divide India in two. I wouldn't believe it. 36 maalmood oo kaliya ayay ku qaadatay gumaystihii gumaysan jiray dhulkan inuu ku kala baro kana dhex curiyo dadkii deegaanka colaad lagu tiriyo inay ka mid tahay colaadaha ugu waaweyn qarnigan aynu ku jirno. Haddaba maxay tahay sheekada ka dambaysa colaadda Kashmir? Maxay yihiin dalalka isku haysta? Maxay tahay ahmiyadda uu leeyahay gobolkani ee ka gaaryeelaysa gobollada kale? Muuqaalkeena maanta daawadayaal waxaynu ku soo qaadanaynaa sooyaalka colaadda gobolka Kashmir inagoo ogaan doona meesha ay salka ku hayso colaadani. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Bari Media. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. intaynan u gelin muuqaalkeena, haddii aad nagu cusub tahay ha ilaawin inaad nagu soo biirtid oo aad taabatid calaamada subscribe, sidoo kalena aad shidatid gambaleelka si ay ku soo gaaraan dhammaan muuqaaladeena cusub isla goorta aynu soo gelinno. haddii uu ku qanciyo muuqaalkuna ha ilaawin inaad leeg saartid lana wadaagtid asxaabtaada. mahadsanidin. aynu u galno muuqaalkeena maanta. bishii 8aad sanadkii 1947 waxaa si rasmi ah uga hayaamay dhulka Hindiya gumaystihii Ingiriiska kadib 173 sano oo uu gumaysanayay dalkan. laakiin Ingiriiska xilligaasi caadadiisu ma ahayn in haddii uu dal ka baxayo uu ka baxo isagoo isku haysta oo u midaysan sidii uu ugu yimid. waxay ku fikireen Ingiriisku inay kala qaybiyaan dhulweynihii Hindiya. si ay u kala qaybiyaanna waxay u xilsaareen nin abukaati ahaa oo ka soo jeeday Ingiriiska, waxayna u qabteen 36 maalmood oo kaliya si uu u jaangooyo xuduudaha ay yeelan doonaan labada dal ee loo qaybinayo Hindiya. 36 maalmood oo kaliya ayaa ku filneyd si ninkani oo u kala irdheeyo una kala fogeeyo dad weligood wada noolaa. waxaana samaysmay labada dal ee aynu maanta naqaano ee Hindiya iyo Pakistan, laba dal oo uu mid yahay Muslim kan kalena uu yahay Hinduusi. wuxuuna dhigayay go'aanka lagu kala qaybiyay labada dal in gobollada dadka ku nool aqlabiyadoodu ay yihiin Islaam ay ku biiraan Pakistan, gobollada ay dadkiisu Hinduus yihiinna ay ku biiraan Hindiya. sidoo kalena waxaa meesha ku jirta in gobol walba dadkiisu ay yihiin iyagu kuwa go'aaminaya cidda ay ku biirayaan. gobollada badankoodu waxay ahayd mid sahlan inay go'aamiyaan meesha ay ku biirayaan marka laga yimaado 3 gobol oo kala ahaa gobolka Hyderabad, gobolka Junagadh iyo gobolka Kashmir. gobolka Junagadh wuxuu go'aansaday hogaamiyihii hogaaminayay oo ahaa Muslim inuu ku biiro Pakistan, laakiin waxay ahaayeen aqlabiyadda dadka dega gobolkaasi Hinduus. wayna ka biyadiideen in gobolkooda lagu daro dalkan Islaamka ah, taasoo ka dhigtay ciidamadii Hindiya kuwa soo faragashta oo si xoog ah ugu daro gobolkan gobolladii dhacay dhulkooda. sidoo kale gobolka Hyderabad ayay isagana ciidamadii Hindiya xoog ugu soo direen dalkooda. laakiin gobolkii saddexaad ee Kashmir ayaa noqday mid ka duwanaada labadii gobol ee hore. Kashmir waxaa xilligaasi ka arriminayay nin Hinduusi ahaa oo la dhihi jiray Hari Singh. dabcan sida gobolladii kale ee ay Hinduustu haysteen, wuxuu damcay inuu ku biiro dalka Hindiya, laakiin aqlabiyadda dadka dega oo Islaam ahaa ayaa u diiday hogaamiyahan inuu si sahlan ugu biiro Hindiya. markii uu arkay inuusan awoodin inuu ku khamaaro xukunkiisa iskuna kiciyo dadkii uu u tirinayay ee aqlabiyadoodu ay ahayd Islaamka, ayuu heshiis u soo bandhigay labadii dal ee Hindiya iyo Pakistan isagoo ka codsanaya in gobolkan loo daayo sidiisa uuna ka madax bannaanaado labada dalba. heshiiskan way yeeshay Pakistan, laakiin Hindiya way ka biyadiiday oo ma yeelin. wuxuu socdo khilaafka u dhaxeeya labada dal. wuxuu ugu dambayn lugaha la galay dagaal hubaysan oo ay isaga hor yimaadeen labada ciidan ee Kashmir iyo Hindiya sanadkii 1947. dagaalkan ayaa keenay in Hindiya ay qabsato 3 meelood oo meel gobolka Kashmir ka hor intaysan soo faragelin qaramada midoobay soona saarin 18 bishii 8aad sanadkii 1948 go'aan ay ku iclaaminayaan in la joojiyay dagaalka, sidoo kalena la sameeyo afti ama doorasho dadka gobolkaasi ay ku go'aaminayaan masiirkooda.
waxayna u soo jeediyeen qaramada midoobay in deegaanada dhaca gobolka Kashmir ee ay aqlabiyadda dadkiisu yihiin muslimiin ay ku biiraan Bakistan, halka kuwa Hinduusta ahna ay ku biiraan Hindiya, sidaasina ay ku soo idlaato colaadani. Laakiin nasiib darro, soo jeedintan ayaa ahayd welina ah soo jeedin aan waxba laga soo qaadin oo waraaq un lagu xardhay. Sanadkii 1965 waxaa mar kale curtay dagaal labaad kadib markii ay xurguf soo kala dhex gashay labada dal. Dalka Bakistan ayaa isku dayay inuu taageero u fidiyo maleeshiyaadkii ka dagaalamayay Kashmir, taasoo ka dhigtay Hindiya mid ka caroota tallaabadan. waxaana markii ugu horeysay bishii 9aad ee sanadkaasi dhex maray labada ciidan ee Hindiya iyo Bakistan dagaal toos ah. maxaa yeelay markii hore waxa dagaalami jiray badanaa ciidamada Hindiya iyo ciidamo maleeshiyaad ahaa oo degi jiray Kashmir, oo marna maysan dhicin in ciidamada Bakistan ay si toos ah dagaalka ugu lug yeeshaan. Dagaalkii ugu dhammaaday kadib dadaallo xabad joojin ah oo ay dalalkii caalamku xilligaasi ku dhexdhexaadinayeen labada dal, waxay heshiis ahaadaanba oo aysan dagaalamin. waxaa mar saddexaad ka dhex uratay xurguf dagaal kadib markii ay ku eedaysay Bakistan in Hindiya ay garab siinayso dhaqdhaqaaqii ay ku doonaysay Bakistanta bari inay hesho gooniysutaag oo ay ka madax bannaanaato Bakistan. Dhulkan oo maanta loo yaqaano Bangladesh ayaa noqon doona dal si dhammaystiran uga go'a Bakistan. 1971 ayay labada ciidan ee Hindiya iyo Bakistan isaga hor yimaadeen dagaal kale. markan Bakistan waa laga awood roonaaday oo waxaa ku gacan sareeyay dagaalka Hindiya, taasoo ka dhigtay Bangladesh mid si rasmi ah u shaacisa inay ka goosatay Bakistan. dagaaladan iyo colaadahan aan dhammaadka lahayn ee dhex maray labada dal ayaa ka dhigtay kuwo ku fikira horumarinta istiraatiijiyadooda dagaal, waxayna labaduba shaaciyeen in ay samaysteen hubka nukliyeerka. waxayna noqotay Bakistan dalkii ugu horeeyay uguna dambeeyay ee Islaam ah ee samaysta hubkan lagu tiriyo hubabka ugu halista badan adduunka. markii ay labaduba yeesheen hubka nukliyeerka, waxay arkeen inaan la joogin xilligii la isugu goodin lahaa dagaal ayna iscudud la ekaadeen. waxaana dhacday in sanadkii 1972 ay labada dalba wada saxiixdaan heshiis xabad joojin ah oo lagu soo afjarayo dagaalka, wuxuuna heshiiskan siiyey dal walba inuu haysto oo uu lahaado dhulalkii uu ka qabsaday dagaalka, iyada oo aan loo eegin dhulkaasi meesha uu ku yaalo. horaantii sanadkii 1990 waxaa dib u curatay colaadii Kashmir. waxaa dhacday in maleeshiyaad hubaysan oo ka soo jeeday gobolkaasi taageero ciidan iyo siyaasadeedna ka helayay Bakistan inay weeraraan ciidamadii Hindiya, waxayna weeraradan uga jawaabeen Hindiya xasuuq ba'an oo ay u geysteen shacabkii masaakiinta ahaa ee u badnaa Islaamka ee deganaa Kashmir. sidaasi oo kale 9 sano kadib, gaar ahaan 1991 waxaa dhacday in maleeshiyaad sidan oo kale u nidaamsanaa ay si dhuumaalaysi ah u galeen Kashmir, qaybta ay Hindiya maamusho, waxayna la wareegeen buuraleyda Gargil. dhacdadan oo ahayd dhacdo filan waa ku noqotay Hindiya ayaa awood u yeelatay inay buuraleydan dagaalo dheer kadib dib u soo ceshato. sanadkii 2001 waxaa mar kale la weeraray baarlamaankii Hindiya. weerarkan ayay xujo ka dhigatay Hindiya si ay dagaal ugu qaado Bakistan, laakiin mar kale waa la soo kala dhex galay, waxaana la dhex dhigay heshiis xabad joojin ah labada dal. inkastoo ay xilli ka mid ah xilliyada isku ahaayeen dal, haddana mar walba oo ay heshiiyaan wuxuu noqdaa heshiiskaasi mid aan soo dhaafin waraaqihii lagu heshiiyey oo aan waaqac loo bedelin. haddaba waxaa dhici karta inaad isweydiinaysid maxay tahay ahmiyadda uu u leeyahay gobolkani labada dal, maxay uga heshiin waayeen oo uu dal u qaadan waayey, se maxaa ka gaar yeelay gobolladii kale ee uu mid walba go'aansaday inuu ku biiro dalka uu rabo. dalka Hindiya wuxuu u arkaa Kashmir inay tahay furin dagaal oo muhiim u ah si ay uga hor istaagto ugana difaacdo dalkeeda Shiinaha iyo Bakistan. sidoo kale waxay u aragtaa in haddii ay u ogolaato gobolkan inuu ka madax bannaanaado, ay waddo u furayso gobollo badan oo iyaguna ku dhiiran doona inay dalbadaan gooniysutaag. maxaa yeelay Hindiya waxay ku dhisan tahay dadyow kala haysta diimo aad u badan, halka Bakistan ay tahay dal leh hal diin oo keliya. Bakistanna waxay u tahay Kashmir halbowle dhaqaale iyo amni. waxaa mara gobolkan 2 waddo oo ka mid ah waddooyinka ugu waaweyn Bakistan, kuwaasoo isku xira dalka oo dhan. sidoo kale waxaa marta waddo tareen. dhaqaale ee ahaan gobolkan waxaa ku yaala 3 webi oo muhiim u ah beeraleyda Bakistan, taasoo ka dhigan in haddii Hindiya ay gacanta ku dhigto gobolkan, ay sidoo kale gacanta ku dhigayso hub ay kula dagaalanto Bakistan. hubkaasi oo ah biyaha webiyadan. isku soo duuduuba gobolka Kashmir ayaa ilaa maanta tusaale cad u ah
dhaxalkii foosha xumaa ee uu adduunku ka dhaxlay gumaystihii Yurub, dal dadka dega ay walaala ahaayeen, ay wada degi jireen, sidoo kalena ay diris wadaag ahaayeen, aan kala lahayn xuduudo iyo sohdino, ayay sii kala dhexdhigeen xuduud mala awaal ah, taasoo kala irdhaysay kana dhex urisay colaad aan dhammaad lahayn. intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalkeenna maanta. haddii aad soo gaartay halkan, ha ilaawin inaad leeg noo saartid lana wadaagtid asxaabtaada. mahadsanidin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.